nuujinta muddadaasi waxay keenaysaa ugu yaraan dee 2 sannadood dee si dhammaystiran u nuujisa inaanay uur yeelan marka ugu yaraan waxay kala weynaanayaan 2 sannadood ay nuujinayso iyo 9 bilood oo dee ka dambe uu uurka ku jiri doono aayaddaas loo daliishadaa markaa kala korintu inay tahay waxaana shariicadu diidahayn bal ay dhiiri gelisay waxa lagu kala korinayo baa muhiima inuu yahay marka koobaad wax xalaala mar labaadkana waxaan dhibaato u keenahayn ruuxa dumarka waxyaabahan kala korinta loo isticmaalo oo dhanna daraasaadka la sameeyey oo qaar ka mid aan akhriyay buugaag laga qorayba kolley dhibaatay u sheegaan marka ruuxa dumarka ee su'aashayna weydiisay waxaan leenahay inaad kala koriso oo tusaale ahaan dee 2 sannadood oo kale aad u dhaxaysiiso ubadkii wax dhibaato kuma jirto